السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena sheeko xiiso badan xoggaal u noqo barnaamijkeenan waxaynu kusoo qaadan doonaa sheeko markaasi aan ka sameeyay labo arday oo markaasi wada dhigan jiray dugsiga isla markaasina waxa ay soo gaadheen waqtigii qalin jabinta ee ay ka baxayeen imtixaanka shahaadiga barnaamijkan waxaynu ugu talagalnay in ay ka faa'iideystaan ardaydu isla markaasina ay iska ilaaliyaan waxa loo yaqaano qishka kaasi oo ay caan ku yihiin dadka inta badan ee aan waxbarashadooda aan ku kalsoonayn isla markaasina aan si fiican aan waxba u diyaarin jirin waqtiyadii ay waxbaran jireen labada nin ayaa markaasi waxay ahaayeen laba nin oo saaxiib ah isla markaasina waxa ay ka qalin jabinayeen dugsiga sare kadib markii imtixaankii loo fadhiistay ayaa waxa ay bilaabeen in markaasi midna uu si wanaagsan ayuu wax u soo qaybay isla markaasina waxa uu ahaa qof waxbarashadiisa ku kalsoon isla markaasina si wanaagsan wax u dhigta isla markaasina ka dhabeeyay tacabkii lagu soo tabcay ka kalena waxa uu ahaa markaasi nin aan isagu markaasi waxbarashada aan diyaar u ahayn amaba se lagu khasbi jiray oo markaasi waalidka uun ka dhammayn jiray lacagta iyo waqtiga intaba kadib dabadeetna markii dambe ayaa waxa ay labadii nin soo wada fadhiistaan kursiga isla markaasina waxa ay ahaayeen ayaynu nidhi laba nin oo saaxiibaa maalintii dambe ayaa ninkii ugu horreeyey ee waxbarashadiisa sida wanaagsan u diyaarin jiray ayaa markaasi waxa uu bilaabay in uu si wanaagsan wax u akhristo isla markaasina imtixaankiisa uu soo diyaariyo kadib markii imtixaankii la yimi ayaa midna waxa uu keenay waxbarashadiisii dhibco aada u sarreeya waxa uuna ka mid noqday ardayda dalka ugu sarreysa kii kalena markaasi waxa uu bilaabay inuu qisho oo uu markaasi u wax qisho dabadeetna ninkii kale ay saaxiibada ahaayeen ayaa ku yidhi weligaaba ma waxuunbaad qishaysaa in badan ayaad wax soo qishaysay laakiin maanta ma aha waqtigii aad wax qishi lahayd balse waxa weeye waqtigii aad markaasi ka dhabayn lahayd yoolkaaga iyo hadafkaagii aad muddada dheer soo waday dabadeetna markaasi waxa uu ku yidhi saaxiib waxaan doonayaa inaad markaasi aad iga caawiso imtixaanka si markaasi aan u guulaysto dabadeetna markaasi waxa uu ku yidhi laguma guulaysto qish aad wax qishtay balse laakiin waxaa lagu guulaystaa in markaasi waxbarashadaadii aad iyo yoolkaagii mustaqbal aad markaasi waxbarashadaadii aad si wanaagsan aad wax u baratay oo markaasi waxaa ku anfacaysa un waxbarashadaadii iyo maxaan kugu dhahdaayey waqtigii wax lagu soo barayay inaad ka dhabayso hadafkaagii unbaa ku anfacaya balse maanta waxba kuu tari mayso inaad wax qishto dabadeetna markaasi waxa uu ninkii bilaabay inuu ardaydii kale lodkiisa ahaa ama khayrkiisa ahaa ama ardaydii khayrkiisa ahayd inuu wax ka qisho dabadeetna markaasi sidaasi ayuu ku dhacay ninkaasi dabadeetna maalintii dambe ayaa markaasi imtixaankii baa lagu dhawaaqay dabadeedna markaasi waxaa la sheegay inuu ninkaasi markaa imtixaankii uu ku dhacay dabadeedna markaas waxa uu bilaabay inuu halkaas uu ku khasaaro markaa waxaa loo baahan yahay qofka ardaygaa ee wax imtixaanka gelaya inuu iska ilaaliyo shayga loo yaqaano qishka oo markaasi qofka marin habaabinaya waxbarashadiisii iyo tacabkii waalidkii intaba markaa sidaasi ayuu ardaygaasi markaasi uu ku fashilmay oo uu markaasi waxbarashadiisii uu kaga hadhay ninkii kalena markaasi wuxuu gaadhay inuu markaa ka mid noqdo ardaygii dalka ugu sarreeyey dabadeetna sidaas ayuu kaasina uu markaasi waxbarashadiisii uu ku dhammaystay markaa aynu kala dardaarmaynaa maadaama arday badan oo jamhuuriyadda somalilan ka mid ay u fadhiisanayso imtixaankii shahaadiga ahaa fasalka 8aad iyo fasalka 4aad intaba inuu qofku iska ilaaliyo qishka isla markaasina uu maskaxdiisa maalo maadaama waqti badan lagu soo tabcayay oo waqti badan la geliyey waa inuu qofku iska ilaaliyaa inuu markaasi uu wax qisho amaba se imtixaanka aanu markaasi ka gaadhin yoolkii iyo hadafkii uu ka lahaa waayo in badan ayay waalid badan kugu soo tabcayeen hooyada iyo aabahaba muddo dhan kugu soo tabcayay maanta uma baahnid inaad wax qishto amaba se aad markaasi aad waxbarashadaada aad samayso inaad qish aad samayso markaas waxaa loo baahan yahay inaad maskaxdaada maasho oo markaasi aad iska ilaaliso qishka waa tahay daawadayaal intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkeenan sheeko xiiso badan xoggaal u noqo waxaanad kala socotaan barta youtube-ka aan ku leeyahay ee maxamed turki channel
inta in barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan ha ilaawin inaad tiraahdo like ama subscribe